السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka diga daawanaysto abno official fadlan janka jaa ku soo subscribe sar si ku soo gaara muuqaalada muuqaalkan waxa kaga hadlaynaa reasonska ama sababaha qof waliba uu bilaabay ganacsiga asiga uu leeyahay. qof waliba wuxuu rabaa inuu bilaabo ganacsiga asiga u madax banaan oo asiga uu leeyahay, waayo dawaafic ayaa jirta qofkan ku kalifayso mar waliba inuu rabo ganacsi asiga u madax banaan, xitaa hadii uu yahay shaqaale $2,000 $3,000 bishii ku shaqeeya. ku xisaabtan inaad adiga madax banaanaatid ayaa ka wanaagsan inaad dad kale u shaqeysid mararka qaar kood. qof waliba wuxuu doonayaa inuu ka baxsado shaqada loo yaqaan 9 to 5 pm, inaad shaqada 1 saac 3 saac subaxnimo ay gashid 12 saac subaxnimo ay ka baxdid, halka Muqdisho ama dhamaan magaalooyinka Soomaaliyeed ee celcelis shaqada la galo 2 saac ama 1 saac ilaa 12 mararka qaar habeenkii la shaqeeyo shifti maalin iyo shifti habeen ah. qof waliba wuxuu doonayaa markaas inuu gaabkaas ka baxo oo uu madax banaanaado xilliga uu rabo uu hurdada ka soo kaco, xilliga uu rabo uu saaxdo. saas darteed qof waliba wuxuu rabiyaa inuu ka baxo cadaadiska attendance-ga oo isxaadirinta. markii asaga ganacsiga uu leeyahay uu furto, wuxuu dareemayaa albaabka suuxaas uu furaayo inuu asaga mas'uul ka yahay. hadii albaabkaas uu xiran yahay inuu asaga qasaarayo, hadii albaabkaas uu furan yahay inuu asaga faa'iidayo ayuu dareensayaa. marka qofkan wuxuu rabiyaa shaqo asaga u madax banaan inuu lahaado. qodobka labaad ee ku kalifaya qofkani inuu oo ganacsi asaga u gaar ah u furto waxa waaye wuxuu rabiyaa wax loo yaqaan hanti wadaag qoyseed inuu dhiso, laga soo bilaabo shakhsiyan asaga nafsadiisa inuu dhiso, uu noqdo qof hodan ah oo taajir ah. ganacsigaas markii uu weynaado ay caruurtiisa dhaxlaan, caruurtiisa ay ka faa'iideystaan dakhligaas iyo hantidaas, ayagana ay sii wadaan ganacsigii generationka saddexaad ama jiilka saddexaad ay ka sii faa'iideystaan. wuxuu rabiyaa qofkan riisiga ku bilaabo waxa waaye in qoyskiisa saddexaad ama hodan uu ka dhigo oo meeshii ugu dambeysay ilaa uu ganacsigaas gaari karaa inuu gaarsiiyo jiilka koowaad, jiilka labaad, jiilka saddexaad. qodobka saddexaad ee qofkan ganacsi ku kalifayo inuu bilaabo waxa waaye inuu caawiyo reerkiisa. laga yaabo inuu ka dhashay qoys markaas buur ah oo faqri, uu rabiyo qoyskaas inuu u bedelo qoys qani ah. sidoo kale inuu rabiyo inuu caawiyo qoyskiisa oo ganacsi u dhisnaa, ganacsigaas sidii uu ku sii jiri lahaa oo meesha lagu sii wadi lahaa oo lagu sii dhigi lahaa ganacsi ballaaran. qofkani wuxuu doonayaa inuu caawiyo qoyskiisa. qodobka afraad ee ku kalifaya qofkan inuu furto ganacsi asaga uu leeyahay waa inuu noqdo boss. qofkan wuxuu rabiyaa inuu maamulo dadka, inuu dad u shaqeeyaan, ayuu rabiyaa, waayo wuxuu dareemayaa markaas inuu asaga yahay qof boss ah oo dadka ay ku shaqeynayaan shuruucda iyo xeerarka uu company-ga markaas dejiyay, oo asagana dareensan yahay markaas inuu yahay bosskii meeshan lagu dambeeyay, CEO of the company ninka iskale meeshaas inuu yahay ayuu dareensan yahay. qodobka shanaad waxa waaye inuu caawiyo macaamiisha iyo bulshada, inuu ka caawiyo waxay u baahan yihiin. qofkani wuxuu ku fikirayaa waxa ay bulshadani ay u baahan tahay, maxaa keenaya inuu ka caawiyo bulshada si uu ugu faa'iideysto asagana bulshadana ugu caawiyo inay guuleystaan oo ay helaan wixii ay rabeen, asagana uu ka raadiyo markaas manfaco maadaama uu awood u leeyahay inuu keeno waxay bulshada u baahan yihiin kadib uu wax ka sii raadiyo. qodobka lixaad ee ku kalifaya qofkani inuu ganacsi asaga uu leeyahay u abuurto waxa kamid ah inuu caawiyo dadka dhalinyarta inuu u sameeyo shaqo abuur. waayo qofkan ganacsi markii uu sameysto wuxuu shaqo gelinayaa dhalinyaro qaraabadiisa, sidoo kale dhalinyarada aqoon-yahanada ee magaalka jooga ayuu ka caawinayaa inay shaqo helaan si ay ayaga markaas familygooda iyo qoysaskooda uga caawiyaan. haddaba kuwani waxay ahaayeen ilaa dhowr qodob oo aan ku hadlaynay waayo qofkan ku kalifaya in ganacsi uu bilaabo. waxaan rajeynayaa inaad 100% ka faa'iiday. fadlan channelka ku subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga.